السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكين عبد الله محمد بيروله إن شاء الله وحندين سو قدبينيا موضوع كسابسا قام نوليتك النبي صلى الله عليه وسلم كنا سو هذا موضوعنا قيبتي سكوات محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد وهرين مقعيس محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب مسلمين توحى رميسيهين إن نبي محمد هو يهي أرجع الله ama wafariin wadihii alle ee loo soo diray jinka iyo istigaba si ugu saaro cibaadada asnaamta iyo daaquudka uguna xiro cibaadada alle subhanahu wa ta'ala waana arinka anbiyada oo dhan loo soo diray nabi muhammad waa nabiyada nabigii ugu dambeeyay waxaana loo soo diray dadka oo dhan waxa kale oo ay rumaysan yihiin muslimiinta in uu yahay makhluuqaadka kan ugu sharafta badan iyo hogaamiyaha basharka wuxuu ku dhashay magaalada Makka bisha Rabiul Awwal Soomaalidu u taqaan mawliidka sanadkii maroodiga hijriyada ka hor 53 sano kuna beegan 571 miilaadiga waxa la dhalay isagoo agoon ah hooyadiina waxa ay dhimatay isagoo yar wuxuu ku soo barbaaray gacanta awowgii markuu dhintayna waxa kafaalo qaaday adeerkiis Abu Talib meesha ayuuna ku barbaaray wuxuuna ka shaqeyn jiray raacitaanka ariga kadibna wuxuu bilaabay ganacsi wuxuu guursaday Khadija bintu Khuwaylid iyadoo da'diisu ay tahay 25 sano waxa aynu u dhashay caruurtiisa dhamaan markii laga reebo Ibrahim wuxuuna ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam islaamka ka hor midna cibaadada asnaamta taasoo ku faafsaneyd magaalada Makka ya rajai